bini aadamku intuu adduunka joogo waxa uu maraa marxalado tiro badan oo kasoo bilaabmaya maalinta uu caloosha hooyadii galo ilaa inta uu ka dhimanayo. haddaba muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa ilaa 6 marxaladood oo qofka bini aadamku waqtiga uu nool yahay uu marayo. marxaladda ugu horeysa waa marxalatul jiniin, waa inta ilmuhu caloosha hooyadii ku jiro oo ah qiyaastii 9 bilood. 9 bilood 40 cisho waxa uu noqonayaa candhuufo, 40 cisho kale waxa uu noqonayaa xinjir, 40 cisho kalena waxa uu noqonayaa mudqa, kadibna ruuxda lagu afuufaya ilaa uu sadkiisa ka dhamaysto adduunku imanaya. 9 bilood waxa la yiraahdaa marxalatul jiniin. markuu adduunka yimaado waxa uu bilaabmaysa marxaladda labaad oo la yiraahdo marxalatul tufuula ama marxaladda caruurnimada. waa inta ilmuhu korayo, muruq ahaan adkaanayo, waxa weeyaan laftiisu adkaanayso, waa ilaa 10 sano inta lagu qiyaaso. 10 sano markuu ilmuhu gaaro waxa uu bilaabmaysa marxaladda saddexaad oo la yiraahdo marxalatul muraahaqa oo ah marxaladda kuriinimada, taasoo qofka caruurnimadina uu ka baxayo qaangaarkiina uu gudbayo. 20 sano qofku markuu gaaro oo uu noqday qof qaangaara oo mas'uula oo adduunka 20 sano soo joogay, waxa uu bilaabmaysa marxalatul shabaab oo ah marxaladda dhalinyarnimada. waa marxaladda ugu qaalisan aqlaa waqtin fil xayaa weeyaan, waana the gold age, waa xilliga dahabiga ah ee qofka bini aadamka uu caafimaad qabo, tabcan karo, adduunkuna ugu macaan yahay. waa muddo u dhaxaysa 20 sanadood, 20 jir ilaa 40 sano, waana marxaladda ugu muhiimsan. marxalad ee uu gudbayo qof markuu 40 gaaro waxa la yiraahdaa marxalatul kuhula ama marxaladda caqli badnida. 40 sano waa xilliga ninka raga caqligiisu dhamaystirmo, garaadkiisu dhamaystirmo, sababtoo 40 sano oo ay aragnimo ayuu qabaa. qofkii 40 jir markuu yahay waxa weeyaan caqli laga waayana cimrigiisa inta ka hadhayna garaad laga sugi maayo, ciyaalka xaafaddu iska ahaanaya. marxalatul kuhula waa muddo 20 sano u dhaxaysa 40 jir ilaa 60 sano. 60 jir qofku markuu gaaro marxaladda waxa weeyaan u dambaysa ayaa u bilaabmaysa oo la yiraahdo marxalatul shaykhuukha ama marxaladda odaynimada iyo waayeelnimada. waa xilli qofku caruurnimo dib ugu noqonayo, laftiisu dabacayso, muruqiisu jilcayo, uu u socdo xagga geerida iyo tabardarrida iyo xanuunka sariirtana uu laasimayo. haddaba halkaa waxay inooga muuqanaysaa marka marxalatul shaykhuukha qofku ilaahay gaadhsiiyaba dhammaadkii nolosha ayuu qofku u gudbay, oo waxaaba laga yaabay inuu halkaas ayay tahay meesha nolosha adduunya ay ku dhammaanayso. haddaba waxaan maraaxisha idinku sheegayaa waxaad moodaa bilowga nolosha iyo dhammaadkeedu inay isku qaab yihiin. marxaladda caruurnimadu waa xilli qofku tamar daran yahay oo la ilaalinayo. marxaladda u dambaysa dhammaadkuna ee gabowgu waa marxalad taa la mida oo qofku tamar daran yahay oo la ilaalinayo. halkaasi waxaad kaaga muuqataa in adduunyadu aanay naf lahayn oo ay tahay meesha rasmiga ah ee in loo shaqaysto aakhiro. haddaba ha ilaawin aakhiro, iyada markasta u tabco u dadaal. aad baa u mahadsan tahay. muuqaalkan like saar si asxaab badan u gaaro, siina faafi si dhammaanteenan ajar uga wada helo. ogeysiis waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska diiniga Liibaan Online Teaching uu diiwaan gelin doono arday cusub. haddaba haddii aad rabtiin inaad baratid higaada, quraanka iyo tajwiidkiisa, tafsiirka, axkaamta, tani waa fursadaadii. sidoo kale haddii aad qurbaha joogtid oo rabtid ilmahaaga uu diinta kugu barto si dhammaystiran oo sabtida iyo axadda kaliya aad kaga maarantid, tani waa fursadaadii. haddaba waxaa nagala soo xiriirtaa lambarka shaashadda kaaga muuqda. haddii aan ku yeeriyana +252 9 eber 5 444 55 eber. aad baa u mahadsan tahay.